تنساتان كوار كيم سوى تمام يا تمام بسم الله الرحمن الرحيم هجانك كنت دفلنتا حبناها كلا دحي حزبك كلمية يمرتد شرفت له كسو قيب كشمدشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن عيال يمروين وهرين مهذا دمي وحيسكله ابهن وين إنه من نستي nimcooyinka kala duwan gaar ahaan maanta inoo suurto galiyay inaynu nabad isugu nimaadno munaasabadda shirka shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye mabda'a siyaasadeed ee aan aaminsanahay tan iyo intii aan hana qaaday ama hami iyo han siyaasadeed aan yeeshay waxaan aaminsanaa in dariiqa keliya ummadana ku heli karto hal door iyo hogaamiyaal hufan uu yahay nidaamka axsaabta badan ee doorashooyinka xorta ah ee ku yimaada waxa xusid mudan xilliga aan wasiir ka ahaa dawladdii militariga ahayd waxaan ka mid ahaa xubnihii farakutiriska ahaa ee dhaliili jiray nidaamka kala tirisnimada iyo talamarorsiga ku dhisnaa guura iyo galab carrow kadib markii aan garwaaqsaday inaan ka mila dhalin karin mabda'an dhinaca kalena uu ii sii kordhay tabaalihii iyo tacadigii bulshada Soomaaliyeed loo geysanayay waxaan duurka u galay dareenka siyaasadeed ee laabtayda degay anigoo naftayda u fideeyay inaan ka qayb qaato halkii isbedel doonka ilaahay mahadii riyadaas waxay noqotay mid ribowday raadisna yeelatay waxaan rumaysanahay inaynu qaran ahaan xaqajina tiir ka mid ah tiirarka udub dhaxaadka oo ah himilooyinka halka isbedel doonka taasoo ah hogaaminta ummadani ku yimaado tartan iyo doorashooyin xor ah mahad waxaa leh ilaahay inoo fududeeyay arrimahan maamusna waxaa leh mujaahidiintii iyo mudankii meel mariyay isbedeladan xanuunka badan ee dibadda u taagay horumarka dib u dhiska dalka dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka xorta ah dib u bilicsi kooban ee taariikhda kulmiye anigoo ka duulaya aragtidan kor ku soo sheegay 23 May 2002 waxaan aniga iyo xubno kooban abaabulnay isla markaana asaasnay xisbiga kulmiye ee baweynta bulshada Soomaaliyeed ku bahoobeen kulmiye wuxuu ahaa ururkii ugu daalayara uguna dambeeyay 7 urur ee la diiwaan geliyay isla sanadka wuxuu ku guuleystay kaalinta labaad ee tartankii doorashooyinka dawladaha hoose taasoo uu kaga mid noqday 3 xisbi qaran ee ugu horeeyay ee sharci ahaan uu dalkeenu yeeshay kuwaasoo kala ahaa udub kulmiye iyo ucid xisbiga kulmiye wuxuu taagan yahay midnimada iyo horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedadiisa ugu weyn ugu hiigsanayana waa bartilmaameed oo dhismaha iyo dib u taagidda qaran dimuqraadiya oo leh hanaan iyo haybad dawladnimo ay ku mahadiyaan muwaadiniintiisa xisbiga kulmiye wuxuu xusul duubaya xaqiijinta himilooyinka shacbiga Soomaaliland taasoo ay xudun u tahay meelmarinta madaxbannaanida qarannimadeena wuxuu ku kalsoon yahay in maalinba maalinta ka dambaysa caalamkeenu ka dul maalmaha ka mid ah caalamkeenu ka dul babad doono xarunta qaramada midoobay iyo dawladnimada kala duwan insha Allah ta'ala mudanayaal iyo marweyn xisbiga kulmiye oo ah maanta xisbul xaakim
wuxuu talada dalkan u hayay u hantay uu soo maray jid dheer uu sahay uga dhigtay sabir dulqaad tanaasul tulaale tala wanaag iyo tawfiiq siyaasadda suuban ee bisaylka badan leh waxay raadaysay bulshada Soomaaliland waxayna beerkooda isu marisay burcad tan iyo xilligii uu dalkani cagta saaray dhabada dimuqraadiyadda xisbiga kulmiye wuxuu kaalin mug leh oo muuqata ka lahaa geedi socodkii doorashooyinka waxaanu ka qayb qaatay dhammaan doorashooyinka ka qabsoomay ee dawladii hoose madaxtooyada iyo golaha wakiilada سيرتارو قيرسو حزبك كلمية وحكسو هوي قولو وحكو أول وأن جوجل حاري مرحلة دان أين مانت الدولة كنا هاي مدن يمبروين وعن شعرنا هالكسي نيت سبيئة وقام هادلقو تاجرياش تراد بدن رقي الدمر مالون من بلوغي أساسك إلى مانتا سيدا هاجر لانتا هيلي هوبا ولا حريرة تاجنا حزبك كلمية ما إلا بدون ضدك وأنا وأبال هين دوننا إن شاء الله سيدا كلا وحسيوين وقوم هاد نقينا مدحدي حزبك وقانكي كنت دي فرين تحبنا قولا دحي يهدور كان وديك وها هبين يمالين كرب يقاشان كإلها تاريخ حزبنا waxay kaga suntan yihiin baal dahaba intii dhimatayna ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo loolanka iyo afkaarta kala duwan ee xisbiga dhexdiisa mudanayaal marweyn in la abuuro xisbi siyaasi ah oo madashiisa ku kulmaan qoor iyo qorweyn kala dabci duwani ma aha xirfad sahlan Soomaalidu waxay ku maamaadaa ma rag waa murciyo afkood sidaa darteed ma wax fudud maareynta iyo kamar dhalinta mabaadi'da lagu midayn karo madaxda iyo majaha kala midabka ah iyo maanka ah kalamaanka duwan ee xisbigu leeyahay isku haynta afkaarta iyo aragtiyaha soo horjeeda waa caqabadaha ugu adag ee hor yaalla hogaamiye kasta oo leh han siyaasadeed xisbiga kulmiye wuxuu ka soo gudbay marxalado badan oo aad u adag kuwaasoo dadka qaarkii mala awaalayeen inay tahay dhammaadka xisbiga kulmiye hase yeeshee uu ka dhaxlay karaar iyo xawli hor leh kala duwanaanshaha afkaarta iyo aragtiyaha ayaa mararka qaarkood sabab u ah ismaandhaaf iyo khilaaf dibadda uga baxa taasoo ay dabeecadda aadamiga iyo tan nidaamka dimuqraadiga ee aynu ilaalinayno xisbiga kulmiye wuxuu ka caanbaxay oo dhaqan soo jireen u ah inuu mar kastoo arrimaha ku xalliyo isu tanaasul tala wanaag iyo isqancin iyadoo ay xilkaskiisu danta guud ee xisbiga had iyo jeer ka hormariyaan danta gaarka ahaaneed mudanayaal iyo marweyn waxaynu wada ognahay in maalmaha dambe bulshadu aad u hadlayso loolanka xisbiga kulmiye dhexdiisa inkastoo tartankani gaar u yahay xisbi kasta xisbi ka mid ah xisbiyada qaranka haddana waxaa muuqanaysay in xafiiltanka iyo xamaasadda ka dhalatay loolanka ka dhaxeeya murashaxiinta xisbiga kulmiye aad loogu dhegtaagayo marka laga tago in kulmiye ay xisbiga talada dalka haya waxaan isleeyahay hadalhaynta badan waxaa sabab u ah mustawaha iyo maqaamka sare ee xisbiga kulmiye ku leeyahay shacbi weynaha Soomaaliland taasoo aan hoos u dhicin 5 sano iyo barkii kadib xilligii la doortay توسار يأدرن مدن يلي مروين وحواله خلافك كذا شيء لولا كحزب كل مدية وسببي الرق بدن الرق إنك مدها أخر إعلامي إن يهين مشرحين أي ما تكمقيهن مدشن أنا شخصيا
kuma faraxsani tallaabadan ay qaadeen saaxiibaday Soomaalidu waxay tiraahdaa afkaaga oo aan ka rogin eed aadan qabin allangoy baa la yiraahdaa sidaa darteed waxaan xubnaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo bulshooyinka reer Soomaaliland u cadaynaya inaan qabin eedaha iyo xajiimaha leeyahay xoqaayo qof ahaan markaan ay Axmed Siilaayo xabaan leeyahay inaan taageero tartamayaasha mid ka mid ah mana jirto xeer ii diidaya ama iska kay daba istabraya arrintan balse waxaan idin cadeynayaa inaan dhex ka ahay tartanka xisbiga kulmiye mar labaad iyo saddexaadba waxaan ku celinayaa waxaan leeyahay amaanadii ummadani ii dhibatay iyo awoodii dawladnimo umaan adeegsan taageerada murashax gaar ah tallaabooyinka dhexdhexaadineed ee ku tallaabsaday mudanayaal iyo marweyn bilowgii marka aan soo gaadhay ay soo gaadhay cabatino la xidhiidha qaabka loo diiwaan gelinayo golaha dhexe xisbiga kulmiye waxaan ka galay muranka dhexdhexaadin iyo isu soo dhaweyn waxaana khilaafkii ku dhameeyay in hawshan ay si wada jira u wada fuliyaan hoggaanka xisbiga kulmiye kala soo kala horjeeday labada dhinac iyo oday Axmed Xaaji Cali Cadamay soo loo helo kalsooni dhex marta dhinacyada tartanka ka dhaxeeya muddo kadib waxa musharaxiintii maqan iyo xubnaha hoggaanka taageersan cabatikooda ka maqlay warbaahinta iyadoo aanay wax dacwada ii soo gudbin isla markaana aan wax warbixina iga soo celin heshiiskii hore kasakow mas'uulkan aan wada ahay qarankan mucaarad iyo muxaafidba waxaan ahay odaygii guud ee xisbiga kulmiye waxaan ahay marjicii iyo mustambeedkii xisbiga kulmiye sidaa darteed anigu mas'uuliyadeeda gudanaya waxaan mar labaad u yeedhay xubnihii hoggaanka taageersanaa murashaxiinta maqan waxaan dhageystay cabitaankooda iyo dhammaan arrimaha ay saluuga ka muujiyeen dhinaca kale waxaan u yeedhay xubnihii hoggaanka kale ee laga cabanayay waxaana dhageystay warbixintoodii iyo jawaab celintoodii tuhmadii loo soo jeediyey kadib waxaan kulan isugu yeedhay labadii dhinac oo kala cabanayay nasiib darro laba habeen oo isxiga gogashii aan fidiyey kamay soo qaybgelin dhinacii cabanayay maadaama aan hore u dhageystay doodda labada dhinacba waxaa qaaday tallaabo muhiim ahayd turxaan bixisaarka iyo xalinta khilaafka xisbiga dhex galay waxaan magacaabay guddi madax bannaan oo ka kooban 5 xubnood oo aan u xil saaray inay xaqiijiyaan soona hubiyaan arrimaha tuunka ku jiro iyo cabatinada la xidhiidha guddidaas oo u badnayd rag cabanayay ama tuunku qabay waxay baaritaankoodii ku soo gabagabeeyeen in xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee la diiwaan geliyay yihiin kuwa saxda ah marka laga reebo 10 xubnood oo bedel ah oo loo buuxiyey hal aan sharciga xisbiga waafaqsanayn kuwaasoo ay go'aamiyeen in la joojiyo aniguna aan ku raacay kaliya kamaan harin isu jiidka ragaygii igu xeernaa tallaabooyinka aan kor ku soo sheegay balse waxaan kulana gaargaar ah aan aad kala duwan u la qaatay hormuudka xisbiga ugu dambeyn waxaan si odaynimo leh ugu baaqayaa murashaxiinta madashan ka maqan inay shirka maanta ka soo qayb galaan isla markaana si xor ah u tartamaan waxaan leeyahay dhammaan musharaxiinta tartamaysa guusha 2 nin ma wada raacdo calafkuna waa halkiisa sidaa darteed waxaa waajiba in waxa la isu haneeyo
ورلفها قرى حرانها كتجنا بدنا يالي مروين كتنازل كمشارحين الحزب الكلمية بدنا يالي مروين سيدا الحقال تهين وحالة مدحوينه هالمر لو دورتي سي ديمقراطية كاسو كلسوني لغو قبو كلسوني لغو قبو يتاغرد اللو هايو تونا آني اسدمين سيدا اي قيحيا دستور كي يشروع دالكو وحنا نقول هينا المر لبعض مرشح النقضة يسون سون تاغو تشغدا مدحوينها دالكا هاسا يشي وحان سر رسمي مانتو عدينيا xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inaan dhammaan shacbweynaha Somaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan markale isu soo shaqeeyo